السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبة قيمها يقدرين مدن برتا فيسبوك الراديو كسماية عدك جبلا نقل الصعدة كسو دوادا حبينتا نحرك دعدوينكا oo aynu markaasi diiradda ku saari doono waxyaabo badan oo gudaha dalka markaasi ka cusub xubinta nuxurka dhacdooyinka waxa aynu markaa ku soo qaadan doonaa qodobo ay ka mid yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markaa tegaya magaalada Addis Ababa halkaas oo kulan kula qaadan doono ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Ali iyo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo xaaladda dalka Soomaaliya ugu warbixinayo ka horjeediyay dhinacyada baarlamaanka wadanka Djibouti iyo ra'iisul wasaare Dr. Hamza Abdi Barre oo kulan markaasi dhinacyo badan taabanaya la qaatay safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya Larry Andre iyo waliba ra'iisul wasaare Hamza Abdi Barre oo isagu markaasi wada tashiyadii ugu dambeeyay ee magacaabista xubnaha golaha wasiirada waxyaabahaasi iyo waxyaabo kale ayaan markaasi xubinta nuxurka ee dhacdooyinka gudaha dalka aynu markaasi ku soo qaadan doonaa balse nala jooga inta muuqaalka aad ka dhameysanaysaan daawadayaal waxaynu markaa ku hormaraynaa xubinteena nuxurka ee dhacdooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo tan iyo markii uu xilka si rasmi ah ula wareegay marka waday booqashooyin uu ku tagay dalalka caalamka ayaa maanta waxa uu ku wajahayahay wadanka Itoobiya gaar ahaan caasimadda wadankaasi Addis Ababa halkaas oo kulan dhinacyo badan taabanaya oo kula qaadanayo ra'iisul wasaaraha wadankaasi Dr. Abiy Ahmed Ali labada dhinac Itoobiya iyo waliba Soomaaliya waxa ay markaa ka wada hadli doonaan xiriirka qotada dheer ee soo jireenka ahi dhinacyada waxa ay sidoo kale soo saari doonaan warburtiyeedyo markaa ku aadan waxyaabaha ay ka wada hadleen xasan sheekh maxamuud oo isagu markaa dhinacyada xilligan markaa dalalka deriska la ahi waxa uu markaa inta badan Itoobiya iyo waliba Kenya kala hadlay wanaajinta xiriirka qotada dheer ee dalalka Soomaaliya iyo waliba dalalka kale ee deriska la ahi ka dhaxeeya xubnaha xilligan Itoobiya ku sugan waxa ay markaa xaqiijinayaan qaar ka mid ah xubnaha wafdiga madaxweynaha iyagu ku welinaya safarkaasi in guud ahaanba xilligan ay inoo xaqiijiyeen in ay diiradda lagu saari doono kulankaasi sida arrimaha gudaha dawladda Itoobiya aysan markaa u faragelin iyo sidoo kale in dawladda Itoobiya ay markaa xilligan Soomaaliya ay isdhaafsi dhinaca ganacsiga ay markaa wada yeelan doonaan markaynu intaasi kaga nimaadno dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxa uu u jeediyay baarlamaanka wadanka Djibouti xasan sheekh maxamuud oo booqasho qaadatay hal maalin iyo bar ku joogay wadankaasi ayaa waxa uu sidoo kale hore ula kulmay dhigiisa wadankaasi Ismaaciil Cumar Geelle iyo waliba xasan sheekh maxamuud waxyaabaha ay kulankooda horey diiradda ugu saareen waxa qayb ka ahi sidii dawladda Djibouti ay markaa u caawin lahayd dadka danta yar ee Soomaaliyeed gaar ahaan gargaarka bini'aadanimada ee Soomaaliya iyo sidoo kale in dawladda Djibouti ay xoojiso dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab waxyaabaha sidoo kale xasan sheekh maxamuud uu markaa baarlamaanka Djibouti warbixinta uu ka siiyay waxa qayb ka ahayd xaaladda dadaalada dawladda Soomaaliya ay wado ku aadan gurmadka abaaraha dadka ay saameeyeen waxa uu markaa xasan sheekh halkaasi ka dhawaajiyay in isaga oo ka duulayo xaaladda dalka uu ku sugan yahay gaar ahaan arrimaha xilligan gargaarka bini'aadanimada uu markaa u magacaabay ergey gaar ah oo isagu arrimahaasi ugu qaabilsan maadaama uu ku mashquulsan yahay siyaasadda dalalka dibadda oo markaa carabaabay in 5 sano aynu ka soo gudubnay madmadow fara badan uu ka dhaxeeyay dawlado badan oo Soomaaliya horey ay markaa heshiis ula ahayd halku dhigiisii ayuu halkaasi ka dhawaajiyay oo ah
Soomaali heshiis ah dunidana la heshiis ahay waxyaabaha sidoo kale uu diradda markaasi saaray oo dhinacyada baarlamaanka Djibouti uu markaa u soo bandhigay waxa qayb ka ahayd isku xirka labada dawladood iyo waliba iskaashiga dhinacyada ku aadan arrimaha miradhalka u ahay labada dal gaar ahaan marka ay timaado in la isdhaafsado xogaha ku aadan dhinacyada xilligan dawladaha waxyaabaha caqabada u keeni kara hagaag daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan wali waxa aan markaa ku guda jirnaa xubinta nuxurka dhacdooyinka oo markaa aynu diradda ku saarno inta badan waxyaabaha gudaha dalkeena xubintana waxa ay noqon doontaa mid maalinle ahi oo aad si toos ah kala socon doontaan barta Facebook ee idaacadda Radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland markan waxaynu eegaynaa ra'iisul wasaare Dr. Xamse Cabdi Barre waxa uu markaa kulan dhinacyo badan markaa looga hadlay la qaatay maanta safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya Larry Andrew oo ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid tahay dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada iyo sidoo kale in dawladda Mareykanka ay qayb ka noqoto sidii loo ciribtiri lahaa kooxaha argagixisada deegaanada ay dalka kaga sugan yihiinna sidii Mareykanka uu qaybtiisa ama kaalin lixaad leh uga qaadan lahaa dagaalka lagula jiro kooxahaasi ra'iisul wasaare Dr. Xamse Cabdi Barre waxa uu sidoo kale xoojiyay muhiimadda ay leedahay in xilligan dawladda Mareykanka ay qayb ka noqoto gulufka dagaal ee ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab dhinacyo badan ayay xilligan isla meel dhigeen oo ay qayb ka tahay la shaqaynta xukuumadda uu dhawaan soo dhisi doono ra'iisul wasaare Dr. Xamse Cabdi Barre oo isagu xilligan markaa wada tashiyadii ugu dambeeyay ee ku aadan magacaabista xubnaha golaha wasiirada Larry Andrew waxa uu dhankiisa ballan qaaday in uu la shaqayn iyo saaxiib dhowba markaa la noqon doono xukuumadda ra'iisul wasaare Dr. Xamse Cabdi Barre waxa uu sidoo kale amaanay doorka ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Engineer Maxamed Xuseen Roble ee kaalintiisa shariifan uu kaga qayb qaatay dib u dhiska dalka iyo badbaadinta xasilinta dalkan oo meel khatar markaa gaaray sida markaa qoraal kooban oo bartiisa Twitter-ka soo dhigay uu kula wadaagay dhinacyada shacabka Soomaaliyeed fariin dhaxalgal ahi ayuu sheegay in ay dawladda Mareykanka xilligan diyaarinayso qorshayaal ay ka mid tahay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dawladdan cusub iyo waliba Mareykanka iyo waliba in wax walba oo ku saabsan dagaalka kooxaha argagixisada Al-Shabaab sidii loo soo afjari lahaa ay qayb uga noqon lahaayeen dhinacyada Mareykanka duqeymo ayuu sheegay in Soomaaliya ay ka fulin doonaan gaar ahaan goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha argagixisada ee ra'iisul wasaare Dr. Xamse Cabdi Barre waxa uu markaa bogaadiyay ballanqaadka durbaba uu sameeyay safiirka Soomaaliya ee Mareykanka isla wararka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaynu ku guda jirnaa xafiiskiisa waxa ka soconaya wada tashiyadii ugu dambeeyay ee ku aadan magacaabidda golaha wasiirada cusub ee markaa ku aadan sidii loo soo dhisi lahaa xukuumadda warar ay helayso Radio Kismaayo codka Jubbaland waxa ay xaqiijinayaan in ra'iisul wasaare Dr. Xamse Cabdi Barre xilligan uu markaa soo kordhin doono wasaarado cusub sidoo kale la kala qaadi doono wasaarado isa saarna wasaaradaha la kala qaadayo oo ay Radio Kismaayo xogta ku heshay waxa qayb ka ahi wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo iyadu ahayd laba wasaaradood oo isa saarna waxaase markaa laga yaabaa in wasaarad gooni ay noqoto dhinaca iyo waliba dalxiiska oo lagu lamaaninayo deegaanka wararku waxa ay sidoo kale tibaaxayaan in ra'iisul wasaaraha wada tashiyadiisa uu sidoo kale qayb lixaad leh ka siiyay dhinacyada dubabka dhaqanka ururada bulshada rayidka oo iyagu aragtidooda uu bilaabay in uu dhageysto hase yeeshee loolanka durbaba ay wadaan
xubno badan oo siyaasiyiin ah gaar ahaan xubnaha ay ka soo jeeda gobolada waqooyi waxa ay iyaguna ku hardamayaan boosas ay ka mid yihiin wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka. wararku waxa ay tibaaxayaan in guud ahaanba dhinacyo badan oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyagoo warbaahinta ay u xaqiijiyeen in ra'iisul wasaaruhu uu markaa soo dhisi doono xukuumad markaa ka turjumayso rabitaanka iyo weliba halku-dhigga ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xilligii uu ololaha doorashada soo galay. inta badan siyaasiyiinta kale ee iyaguna hardanka ku jira waxaa qayb ka ahi xubno badan oo siyaasiyiin ah oo ka mid ahaa xukuumaddii hore ee markaa injineer maxamed xuseen rooble. qaybihii ugu dambeeyay ee xubinta nuxurka dhacdooyinka ayaynu isla soo gaarnay. dowladda soomaaliya waxa ay war ka soo saartay qaraxii kooxda argagixisada al-shabaab ay maanta la beegsatay dad markaa shacab iyo weliba mas-uuliyiin ahi oo ka dhacay magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle. war kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare dr xamse cabdi barre waxaa markaa lagu yidhi marnaba markaa ma niyijabin doonaan kooxaha argagixisada dowlad dhiska soomaaliya. sidoo kale waxa ay dowladdu markaa sheegtay in ay caawimaad degdeg ah u samayn doonto dhaawacyada waxyaabaha markaa xilligan dadka mas-uuliyiinta ahi iyo weliba dadka shacabka ahi ee iyagu qaraxaasi waxyeeladu ay ka soo gaartay. inta dhimatayna ayay alle ugu baryeen inay jannada fardowso alle ka waraabiyo, qoysaskii iyo qaraabadii ay ka baxeenna samir iyo iimaan eebba uu ka siiyo. waa sida war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare xamse cabdi barre isagu lagu sheegay. waagaa guud ahaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee nagala socda barta Facebook ee idaacadda Radio Kismaayo codka Jubbaland xilligan waa naga inta xubinteenna nuxurka dhacdooyinka oo aad si maalinle ahi halkan kala socon doontaan tan iyo kulan dambe. nabadgelyo.